Senatarada Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa maanta yeeshay kalfadhigii koowaad kulankiisa sagaalaad. Ajendaha ayaa ahaa ka doodista iyo ansixinta qorshe howleedka aqalka sare. Kulanka waxaa shir gudoominayay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya, Senator Cali Shacbaan Ibraahin, waxaana dhinaciisa fadhiyay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee Golaha Aqalka Sare, Senator Cabdulaahi Cali Xirsi Timcade. Ajendaha kulanka ee qorshe howleedka golaha ayaa markiiba la gudagalay. Senatarada Golaha Aqalka Sare ayaa fikirkooda ka dhiibtay, iyadoo qaar ka mid ah senatarada ay soo jeediyeen in dib loo dhigo isla markaana la soo akhristo, halka kuwo kalena ay soo jeediyeen in la ansixiyo. Guddoonka Golaha Aqalka Sare ayaa markiiba cod geliyay. Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee Golaha Aqalka Sare Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, Cali Shacbaan Ibraahin, ayaa natiijada ku dhawaaqay. maanta 29 aan kormeerkeena ku soo xaadirka hadda joogto 29 kaasi wax diiday ma jiraan, waa zero waaye, wax ka aaminsan ma jiraan, waa zero. 29 kaas markii aniga lagu daro waa 30 kiina way ogolaadeen. saas oo ansax noogu yaan jadayni. Maxamed Nuur Maxamed Shariifka, warbaahinta qaranka, Muqdisho.